السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ku soo dhawaada mar kale iyo casharkeeni Chemistry Secondary Form 1 waa casharkii labaad. waxaanu kaga hadli doonaa casharka maanta what's chemistry maxaa la yiraahdaa, the importance of chemistry, muhiimadda uu leeyahay chemistry. waxaan ka hadli doonaa branches of chemistry-ga laamaha uu ka kooban yahay. What's chemistry? Chemistry maxaa la yiraahdaa? Chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties, and reactions of matter. Chemistry waxa weeyaan waa laan ka mid ah physical science-ka oo abtirsada. wuxuuna ka hadlayaa the composition, isku dhiska maadadan ama walaxdan waxyaabaha ay ka dhisan tahay, structure qaab dhismeedkeeda sida uu yahay, properties astaamaheeda sida ay yihiin, physical properties iyo chemical properties astaamaheeda duleed iyo astaamaheeda kiimikaad, and reactions of matter iyo falgalada ay la sameynayaan walxaha. intaas ayuu ka hadlayaa marka chemistry-ga. waa nooc aqoonta ka mid ah oo physical science-ka ku abtirsata. shaqadeeduna ay tahay inay ka hadasho isku dhiska walxaha iyo astaamahooda iyo sida ay ula falgalaan walxaha kale. walax maxaa la yiraahdaa marka? Matter is anything that is all around us and has mass and volume. Matter waxaa la yiraahdaa wax walba nagu hareeraysan oo leh cuf iyo mug leh ayaa la yiraahdaa. shay kastoo culays leh, mugna leh, meel buuxin kara, matter baa la yiraahdaa. waxaa ka mid ah hadaan ka hadalno metal, birta ka mid ah, plastic, paper, bacaha iyo warqadda ka mid ah, dareeraha waxaa ka mid ah soda, biyaha aashitada leh ka mid ah, air hawada ka mid ah. waxyaabahaas oo dhan marka waxa weeyaan meel bay buuxiyaan, culaysna way leeyihiin, waana matter dhammaantood. Why study chemistry? waa qodobkeeni labaad ee casharka maanta. Chemistry-ga maxaa loo bartaa? Chemistry is studied to understand what the natural world is made up of and how it works. Chemistry-ga waxaa loo bartaa in la fahmo waxyaabaha dabiiciga ee adduunyadan yaala, waxa ay ka samaysan yihiin si loo ogaado, iyo sida ay u shaqeeyaan. shaygan مثلا dunidan yaalo waxa uu ka samaysan yahay iyo sida uu u shaqeeyo ayaa waxa weeyaan lagu daraasayaa. meelo fara badan ayuu waxa weeyaan wax ka taraa chemistry-ga barashadiis. tusaale ahaan in crop production-ka markaan ka hadlayno kale, wax soo saarka dalagga oo kale, beeraha in wax laga soo saaro oo tayo leh, tiro leh, waxaa loo baahan yahay fertilizers, bacrimiyaal baa la isticmaalayaa to increase crop production. wax soo saarka dalagga si loo kordhiyo waxaa la isticmaalayaa fertilizers la isticmaalayaa. waana chemical compounds weeyaan, waana isku dhisyo kiimikaad weey. marka chemistry-ga muhiimadaas uu leeyahay. marka fertilizer-ka marka waa waxyaabo kiimika ah weey la isku soo daray ayaa laga keenay. waxyaabaha chemistry-ga uu faa'iidooyinka u leeyahay waxaa kaloo ka mid ah conservation of natural resources, khayraadka dabiiciga ah dhowristooda, in la ilaaliyo khayraadka dabiiciga Ilaahay uu na siiyey, sida waxa weeyaan environmental clean up, deegaanka in la nadiifiyo oo wasakhda laga ilaaliyo, dhulka, carrada, hawada, biyaha kulli. faa'iido uu leeyahay ama sababta chemistry-ga loo baranayo waxaa kaloo ka mid ah chemistry-ga wuxuu faa'iido u leeyahay dadka barta health science, caafimaadka barta kama maarmaan chemistry-ga. natural science-ka qolyaha barta, home economics dhaqaalaha kuwa barta kama maarmaan chemistry-ga. education qolyaha cilmiga education-ka barta, waxbarashada ama barbaarinta. environmental science-ka kama maarmaan. qaybta saddexaad ee casharkeena maanta
oo ah branches of chemistry laamaha uu leeyahay chemistry-ga ayaan waxa weeyaan kaga hadlaynaa. Chemistry-ga waxaa loo kala qaadaa ilaa 5 laamood: organic chemistry, chemistry ka hadlaya organic, iyo inorganic chemistry, iyo chemistry la yiraahdo inorganic chemistry, biochemistry, physical chemistry, analytic chemistry. shantaas weeyaan. mid baynu u qeexaynaa. Physical chemistry muxuu ka hadlayaa? Is the study of properties and changes of matter and their relation to energy. Wuxuu ka hadlayaa astaamaha uu matterku leeyahay iyo isbeddelka matterka uu sameynayo iyo xiriirka matterka iyo tamarta ayuu ka hadlayaa. Physical chemistry waa chemistry ka hadlaya muuqaalka shaygan waxa ku dhacaya. Organic chemistry muxuu ka hadlayaa isaguna? Is the study of hydrocarbons. Isku dhisyada la yiraahdo hydrocarbons ku ka hadlaa. Hydrocarbon waxa la yiraahdaa isku dhis kasta oo carbon iyo hydrogen uu ka samaysan yahay ayaa la yiraahdaa hydrocarbon. Marka organic chemistry weeyaan ayaguna, and their derivatives iyo waxyaabaha ayaga laga soo dhiraandhiriyay. Inorganic chemistry muxuu ka hadlayaa isaguna? It is the study of elements. Curiyaasha ayuu ka hadlayaa, curiyaasha tirada badan ee dunyada yaalo, and their compounds iyo isku dhisyadooda. Curiye iyo isku dhiskiis sida curiyaasha la isku dhiso inorganic chemistry-ga lagu bartaa, excluding hydrocarbons and their derivatives ay ka mid yihiin kuwaasna. Analytic chemistry, chemistry-ga waxa weeyaan analytic la yiraahdo oo xisaabta. Analytic chemistry-ga muxuu ka hadlayaa? Is the study of qualitative identification and quantitative determination of the composition of matter. Waxyaabahan matterka ee isku dhiska haystaan tayadooda iyo tiradooda in la ogaado waxaa lagu bartaa analytic chemistry-ga lagu bartaa. Biochemistry waa laba eray isku dhaf ah, bio oo noole ah iyo chemistry. Is the study of chemical process that occur in living things. Waxaa lagu bartaa processyada kiimikaad ee ka dhacaya noolaha dhexdiisa. Noolaha wuxuu ka dhacaa dhexdiisii waxaa ka dhacayo processyo badan sida digestion, dheefshiid, excretion, qashin saar iyo wixii la mid ah. Cilmiga lagu diraaseeyo noolaha iyo shaqada jirkiisa ka socota la yiraahdaa biochemistry. dhegeystayaal daawadayaal casharkeeni maanta halkaas ayuu ku egyahay. fadlan subscribe garey oo share garey si ay uga faa'iideystaan walaalaha kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.